وبين قادر وان حسان كسي أرضي وكسو وريت لنا كلا وريت أنا أرضي مركان أرضي بدن كان أن تابتي عميش اللي مركان قط مركان سي قجوا ده هم لنا مركان ميش ساسي حقيقة مركان بدن كتابني هل كان كأرضي سان أرضي ها وأنا كأرضي ميشان كسعد مركان ذكر عذربتي إن مركان أسكو قرحت حقيقة فديان سان أفديان هرتدي سان أفديان واقرتي واكا marka halkaan aad ka orday halkaan ay aduushan ka orday saasan u orday ana ordaya marka badanka markaan taabtay saan ana ordaya badankan aan hayna saasli qajuu dhaay saasli u orday maxamuud marna ma uusan filayn inuu ka fashilmayo qaraxan waxaana uu sheegay inuu jeedkiisu ahaa inuu la kulmo 72 xuural cayn sida uu aaminsan yahay waxaana loo sheegay in marka uu jannada tago ay gabdho xuural cayna ku soo dhaweyn doonaan heeso nin kasto mu'min ah ninka ugu yar ninka hore aan soo kutooda ay sheegaan ninka ugu yar mu'min ah oo dhinta laba naag ugu dambeysay laba naag uu leeyahay moogtahay ninka shahiidkana 72 waa marka taas way mooyeen in hada nin qaas ku tahay ma walahan nin kasto mu'min ah dhinta waa askale horaan laakiin shahiidka shahiidnimada ka fadla dhaanta bas marka waxa socotay 72 maxamuud isaga ayaa doortay inuu isqarxiyo laakiin goobta uu isku qarxinayo go'aankeeda isagu ma lahayn waxaase lagu qanciyay in goobtan ay tahay halka ugu mudan ee uu isku qarxin lahaa iyadoo loo sheegay inay joogaan dad aan muslim ahayn waxaa jooga lagu dhahay nin shiici nin oo hadda ka hor wuxuu lagu dhahay nin dad badan oo dad qoyskoodu u yimid baadiyo jooga asa dadkii waxay sameeyeen neef geel ninkan karaamadiisa arkayna ay dhahan neef geel ay qaleen asay qoorta ka gooyeen qoorta markay ka gooyeen waxa la sheego ma maqashaa niyow geeli waan qalne ninkii iska lahaan wuxuu dhahay geelay mooyee wax kala mar raba neefkii iga qalin baan rabaa adaana karaamo leh noo istaaji asuu dhahay qul biidnillah qul biidni بإذن الله تمام بإذني قيلي سدي وده نكاس كاس وايو اللي وده مقال هذا الكيس ما أنا مقلن لكن صبر هانتي سالي وتصل بس maxamuud waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in jaakada qaraxa looga soo dhiibay deegaan lagu magacaabo Buula Falaay halkaas oo lagu siiyay tababar kooban oo la xiriira sida jaakada loo qarxiyo kadibna uu soo aaday deegaanka Buqda Hiiraan halkaas oo ay xaaskiisa joogto waxaana uu dhigtay qaraxa gurigii uu deganaa iyadoo aysan ogeyn xaaskiisa taas oo ay dagar kale oo khatar ku galiyay nolosha qoyskiisa Buqda bilan joogay gabar aan qaba meesha degneed sidaan ku joogay u joogay kadib bil markaan soonka markay bishii soonka uu soo dhawaan soo dhaqaaq galab ay tahay soo wacay xagee joogtaa soo bug ma joogtaa hadan ku imaanay lagu dhahay gaari yar ay yimid alaabteen soo qaatay soo bax alaabtaas diyaar gal alaabtaan soo qaaday lagu dhahay sidaan gaari ku soo raacay wabigaan yimid wabigaan ka soo gudbay gaariga waa iga laabtay gaariga ladan soo qaaday soo isoo wadi ma koriyo habeenkii aan ka soo casheeyay waan ka soo baxnay habeenkii aadan yabaal meel ay agteedan seexani subaxdan salaad subax markay soo dhawaadaan ka soo dhaqaaqnay kadib waxa aalbuuran sidii ku yimid aalbuur markaan yimid wixii arrimaha la ii sheegay waa wadaad sidii ku daa ma tusin boorsay ku jirtay meel aan iska dhig aydan boorsada iska ilaaliyaan hada taabanada man ogeyn waxa ku jiran wax inay aragteen kala aan maqon inay aragto ma ogeyn jaakada qaraxa ee uu dhagar qaba maxamuud watay waxa uu ku sheegay inay ka kooban tahay 3 qaybood isla markaana lagu qarxiyay 2 nooc oo kala mid uu isagu qarxin karo iyo mid meel fog laga qarxin karo saddex qayb ay leedahay qayb laba dhinacaan iyo hal dhabarkaan ay leedahay halaasna waxay la egyihiin waxaan ku qiyaasaa hadda halahan marwa mid kasta halaha Soomaaliya sunteeda ay ku jirto waxa ay ku jiraan ay heed kadib ayaga bahay hadii inay ku tusaan inaad aragtana waa laga yaabaa waka taas heed marka xarkaha leedahay qaabka sida lagu masjaaka aad waay loo gashanaa dhar ahaan loo gashanaa shar ama loo gashanaa si jinjeeray leedahay sana loo xiranaa xigitaan way leedahay mid wal marka ay kadib qaj ay dhaxad
تليفون laga soo waca meeshii marka maalintaas waxay ahayd taleefankii aan la soo wici karin taleefan mamnuuc waa la markaas ka hor lagu dhawaaqay nin wajigu qarsaday oo ka socday kooxda al-shabaab ayaa maxamuud loo soo diray si uu ugu sawiro inuu janno galayo marka uu isqarxiyo kadib wuxuuna ku qiyaasay sababta uu wajigiisa u qarsaday cabsi uu ka qabay in la aqoonsado wax walba muddo badan wax dad u soo aqriyo la qabto arkaa u maleena wuxuu isla ninka hadii la qabto sida hadda igu dhacday amal hadii la qabto inuu ku sheega mas wajigaadu arka calaamad uu ka bixi darteed iska qarina Gurceel waa magaaladii ugu horeysay dalka ee al-shabaab ay dadka deegaanka kula dagaalamaan iskana xoreeyaan waxaana looga dilay kooxda al-shabaab horjoogayaal muhiim ah haddana waxay noqotay magaaladii ugu horeysay ee garbaduub loo qabto qof qarax ku xiran yahay kadibna laga hor istaago inuu ismiidaamiyo ismiidaamiyaha la qabtay ma aha nin deegaanka u dhashay ama laga yaqaan waxayna u ahayd Gurceel markii ugu horeysay uu yimaado waxaana hagayay dad deegaanka uu ka mid yahay ninkan Cali Dhubad Nuur Siyaad oo isna ay qabteen ciidamada ammaanku Cali Dhubad iyo ismiidaamiyaha waxa isku xiray nin magaciisa uu ku sheegay Xaaji oo ka tirsan al-shabaab kuna sugan Ceelbuur kaas oo u soo diray Cali qadar lacaga uu ku bedeshay inuu ku xasuuqo shacabka iyo waxgaradka Gurceel oo ay ku jirto hooyadii isaga dhashay Cali waxa uu barnaamijka Gungaar u sheegay in isagii Xaaji uu isku xiray adeerkiis kadibna uu adeerkiis ku wargeliyay in nin qarax ku xiran yahay loo soo dhibay balse adeerkiis ku amray inuu qabto hawsha loo diray أنا مكاس مدلح بدل جوجو نين أذكر إصابعي نين كصابعه يري مكاس وحان راه يري أنا لا شقيده كبعدي مركي نكي وإصابعي وكو إصابعي دي مدة ما قصد حبري إصابعي كبعدي وحان قاصد حمرة عن بلاد كي شيء حمرة سوسي إصابعي هذا ما يلبى مري قدام بدن مرة ويسوي 10 مرة ويسوي 20 ودمين سياسة ونكاس أو حرير كاس أو أنقلية شقق كله أو أركاس أو حرير أن لا يمجري. فجرت العقل $100 أو نليرة أو يبص عن الدغل عن ربع سفر عن ربع حمر آدم ديس دبرين كأنا غني دغل حويري ولا كسوع أنا كسوع يسوق نليرة حاجي أو بريء حاجي الله العقل $100 إيجا أمره حسن الله حسن إلهي meel aan lacagta waxaan ku qaatay oo dhar iyo ilaaj deganto dhar lagu qaato dhar lagu gado aan lacagta uga qaatay silaadka xaaji asii aday ninkaas lacag 750 ii soo diray waxaan ninkii 750 ii soo diray gobolka aad u yiri ka warna iri haye gobolka aad u yiri bas soo baxay maalin talaadahan soo baxay talaadii arbacadii aan joogay habeenkiis قميص سوقلي مايران فارح عبدي وهويدا dhashay Cali Dhubad waxay joogtay goobta wiilkeedu keenay ismiidaamiyaha waxaana uu ninka qaraxa lagu soo xiray dadka uu rabay inuu dilo kamid ahayd hooyadaasi dhashay soo korisay Cali Dhubad waxayna hooyo Mayran hadda ku doodaysaa in wiilkeedu uu doonayay inuu iyada xitaa dilo anigii dhalay oo 10 bilo uurka ku qaaday oo 2 sano uu naaska yahay oo 3 bilo 3 sano kala nabarka ku siday أنا ماشي أسيدكوا أنت أنا وطلعنا أو أصدق إلهي كسر جويان أنا ماشي أتقول وحنا نقولشوا لا أنت ولا بقولة ولا حفيد تقدر هي ليلى محمد سراد oo xaaska u dhaxda Cali Dhubad waxay ii sheegtay in ninkeedu Gurceel iyo laba maalin ka hor inta la qaban ismiidaamiyaha uuna baxay maalinkii qarax u dhaxayay salaadii subax waqtigaas oo ahaa markii uu ismiidaamiyaha doonay wuxuu ku soo laabtay laba habeen ayuu joogay maalinta qaan oo dhacayo muxaadarada la qabanayay habeenkeedii la qaban qaabinayay habeenkii horeeyay oo soo hoyday xilliyadan kale oo imaan habeenkii ma isla joogteen habeenkii guriga ku bariyay ana suxur kariiso habeen maqal habeenkii dhaqdhaqaaqa habeenkii wax dhaqdhaqaaqa ani kuma aan arkin wuu seexday xilligii salaada subax la tukanayay ayuu buu naga soo tagay salaad subax markii la tukanayay salaad subax naga baxay marwa Leyla waxay sheegtay inay ka argagaxday markii ay ogaatay in ninkeedu qayb ka ahaa isku dayga weerarka fashilmay Gurceel waligay wama aan shkin hal mar oo saacadaha Ilaahay kamid inuu Cali al-shabaab yahay ama oo waligay oo al-shabaab la shaqeeyay xitaa hal saac oo saacadaha Ilaahay kamid wama aan shakin
ilaa ciidanka ay ii imaadaan xitaa taliyaha ciidanka markuu noo ciidanka askarta ay guriga noogu imaadeen taliyaha waan weydiiyay taliya maxaan dhacay oo naga raadinaysaa ma ku iri wuu su'aalo wuxuu yiri soo xaaskeen gurigan gabadhi degan batiida uu yiri haa baan ku iri ninka xaaskiisa ma tahaba uu yiri haa baan ku iri waxba ma jiraan uu qosla taliyaha wuxuu yiri waxba dhib ma jiraan baaris baan wadnaa uu yiri sidaas ayaan qabardaar uga ahaa ilaa iyo xilli dambe aan maqlay asaga ayaa waa warkaas wuu cadaaday waan maleysay wax suurtagal ah ila noqon weysa wax inaba ha yaraatee suurtagal ila noqon weysa warkaas hooyo mayran iyo marwalayla waxay si isku mid ah dawladda uga codsadeen in Cali Dhubad laga xafiyo qaradkii uu galay waxaan ka codsaa oo ag fadhiya oo gacnaha hoose inay soo daayaan waxa tabar uma hayaan tabar ma inay soo daayaan aan dawladda sharafta ka codsaa oo hor fadhiya maxkamadda sharafta la gudoomiyaha maxkamadda xeer alaaliyaha maxkamadda qaranka waxaan ka codsanaynaa bini'aadanku way qaldamaan intaan alle iyo malaa'igtiisa iyo kuwa macsuumeenta inta macsuumeenta ah way qaldamaan anaga bini'aadan ayaan qofka bini'aadanka gaf uu ka dhici karaa waxaan ka codsanaynaa inay buugan xariista u baaraan Cali Dhubad noona soo daayaan oo xorriyadiisa dib ugu soo celiyaan qoyska Cali Dhubad oo aan ku booqday gurigooda Gurceel waxa ka muuqatay duruufo adag oo dhinaca nolosha tii oo dheereed magaxuma ay ka dhex dareemayaan bulshada Gurceel maadaama qof qoyskooda kamid ah uu hadow ahaa ismiilaamiyay doonayay inuu Gurceel isku qarxiyo barnaamijka Gungaar waxa uu sidoo kale goobjoog ka ahaa fursad ay nisa galmudug ku siiyaan qoyska Cali Dhubad inay ku booqdaan xabsiga taasoo kamid ah xuquuqaadka asaasiga ee muwaadinka soo leeyahay محمود عبد الرحمن وهاي اسميلاميها la qabtay waxa uu waxbarashada asaasiga uga tagay dugsiga dhexe waxaana ku biiriyay al-shabaab macalinkiisii dugsiga quraanka halkaas oo meesha laga tashkiiliyay kadib aan dugsiga iska dhiganahay saaw dhiganahay dugsiga quraanka aan dhameeyay war labaad aan ku celi kadibna macalinkana al-ittixaad u ahaa kadib asna meesha jihaad iyo shabaab noo tashkiiliyay kadib sidii aan ku raacay 2014 aan raacay bishii shanaad kadibna waan soo baxanay hiiraana imaad tababarka hiiraana ku qaatay hiiraana ka soo baxay hiiraana muddaan joognay hiiraan kadibna hiiraanan dagaalkii ugu horeeyay waxay ahayd Burundiyan oo gale ana laakiin ma aan galinay taliskan joogay rigaa gale maraan weydiiyay waxa loogu sheegay Maxamuud goobta lagu qabtay Gurceel uu doonayay inuu isku qarxiyo waxa uu sheegay in halkaas loogu sheegay inay ka dhacayso munaasabad lagu magacaabo maalinta shuhudada oo lagu xuso halgamayaasha Ahlusunna wal Jamaaca ee geeriyooday iyagoo la dagaalamaya argagixisada al-shabaab dhusmareeb haday ka dhicin Gurceel waayo dhusmareeb hadaysan noqon Gurceel waayo labadaas meel waayo haday dhusmareeb ay ka dhigaan dhusmareeb ay ka dhigi waayaan Gurceel ay ka dhigaan meel isku imaadaan waayo waxa ku qabtaan wadaay maalin ay dhahaan shuhadadu waay ragii marka hore shabaab ay la dagaalantay ku dhaawacmay wixii ku tagay shuhadada la xusaab ay dhahaan markaas saas uu sheegay kadib sidii maalinta habeenkii damagaari la soo qaaday galabnimo aan soo baxay halgaras markaas bartii uu tilmaamay meeshaas waaye ninaan dhusmareeb ka wada meesha ku geeyna ninaan ka sii wada meesha ku geeyna aad bakalba waxa lagu sheegayo waa kaas wada ismiilaamiyo markuu yimid goobtii isku qarxin lahaa waxa ku adkaatay gelitaanka goobta waxaana dhowr mar xiriye ciidamada ammaanka goobta balse isagu waxa uu ku dooday inuu doonayo gabay inuu ka tariyo munaasabada taasoo ahayd xeeladu doonayay inuu ciidamada ku qiyaamo si loogu ogolaado inuu si fudud ku galo goobta ninkan hadda xiran ay yimid kadib magaalada meel banaankeeda uu istaajiyay
magaalada banaanka markuu istaajiyo wuxuu uga dhaxinayaa meeshaan ilaa waqtiga laga gaaro meesha iska sii joog meeshaan sii joogay kadib xilli 3 saac ay tahay oo yimid wixii diyaar waa qalabkaas oo diyaar ku maanha soo baxo way dhahay wadadana galis meesha haddaan tagan isma garanayno way dhahay meeshaan tagay meesha markaan tagay meeshaan saa u kala fiiriyay kadib meesha sidii calaamada liigu tilmaamay ahayd dadaan ciidana ku wareejisanaa kadib meel aan rabo inaan ka gala lama ogolaa liigu dhahay waa istaagay kadib mar lasla istaago shaqada ay dhamaatay aan soo dhaxmaray kadib meesha markaan u soo dhawaaday aan ku soo cararay markaan ku soo cararaan sida liigu qabtay meesha liigu qabtay kadib markii liigu qabtay waxayna dadkii wixii aan wateen ilaahay qadarkiisa mana dhicin anna ilaahay ugu badbaadiyay dadkeen ilaahay badbaadiyay waqtigiina meesha ku dhamaaday dhamma cabdixakiin mustaf daahir waxa uu ahaa qofkii koowaad ee sarkeen ismidaamiye maxamuud kana xeliyay goob uu doonayay inuu xafladda ka soo galo waxaana uu kadib ismidaamiyuu isku dayay inuu ka galo xafladda haddana qaybta haweenka balse isla cabdixakiin oo kor kala socday ayaa haddana is-hortaag ku sameeyey waxayna taasi ku sii kordhisay wiilkan yar ee sargaalka feejignaan iyo inuu shaki ka qaado ninkan كلي ما أركي نكان عبارة أصلا مرمريسان أركي إيش أنكوا هاي مرك أنتوا وركسي ولا أو هلا سعودي دغداغي سا قفكم مقتدر قوم مركو يقفكم مل وحن كذا إن كان سوق سوقل وملك سعيد أنا أكون قانا يا شعب ولا واحد ولا سعيد ولا وريق ماشي أنا ولا سوقل مركز كورين عند صاحب ولا جاش كي وماشي هذا يستاك قبل واحد دورني كمسكين كم حكر بتاعي ده تك شعب كاي ماشي تشوف ورانو كان يسكن الداي عند أنا أساس سوقي markaasna nin cabaar meel ku soo nasto oo hayo lugaa waxa uga taal ciid guduud axmed ciidkaasna uu qabo kale uu dhididay lagu ka dhididay nin meel ka soo kaco ila ekaan markaas qof magaalada joogo ilama ekaan waa gartay markaasna taab waa laga shakiyaan daa saasna u taabtay aan meeshan ka taabtay aan waxa isii boshxabad nashaati lagama hoos mariyo maxay tahay isii boshxabadka aniga dib u fikir marka saas iri aan dhaasaa meeshan waa laga shakiyay laabaan dhahay gaari tikniika aan dalbaday gaari tikniikada ay أنا دانينا كشكيا ماشان جوجي ماشان بال أو جانس كيلين ماشان كان عنده دولا شو علماء كهذا ساس مركو هاي أنصار واحد يروح دعاني أو واحد دعاق علماء مركز وشوبه تان كان كبود عنا هذا مدة لبس ساعة ماشي كويس لي تسأل صوص عادي وأصلني مثلا أنا ماشي دوبان سلام لي وأطلع من هذا مدة لبس ساعة ماشي كويس كبعد تلي عبد الله هي تلي عبد الناصر ماشي فدي أيام وصبح ما قفت كقبتين مركز صدقها كقبنا afar ninkii dambe oo markii rashiiq la socod skuurtkiisa ay laga sargaan mashaki aad ku qabateen mise waxaad aragteen qarax markaas ana qiilshaba qarax waara qarax wadare aka marka waa ku dhiirateen inaad soo qarax wada qabato waa ku dhiirab aniga oo naftayda markaas ma xisaabin oo kula xisaaday kale ninkan waa shacabka badbaadiga aka in shacabka badbaadiyo gaashaanle sare cabdullaahi cali raage ayaa ismidaamiyaha markuu isku dayay inuu orod ku galo goobta u qabtay garbaduub isagoo uu caawinaya askari kale kadibna waxaa dhabarka dambe ka qabtay wiilkii markii hore ka shakiyay oo soo cayrsaday una sheegay saraakiisha in ninkani qarax ku xiran yahay maalintaas horta waxay ahayd maalin shaqadii socotay waxay ahayd xaflad loo dhigayo degmadan saad u ogtahay waxay ahayd degmadii nimanka qawaarijda oo shabaab kow la dirtay ahayd waxa lagu dhigaa xushka shahaadadii ahlu sunna wal jamaa lagu dhigaa waxaan u maleynaa bishii shanaad ay ahaydaan u maleynaa bishii saddexaad sanadkii hore sanadkan hadda aan ku jirnay ahaydaan u maleynaa bisha 17 Ramadaan ay ahayd maalintaas shaqadii way soo dhamaatay markii dhibaatadan u dhaceysay dhibaatada Ilaahay waa naga badbaadiyay laakiin arinta markay dhaceysay shaqadii aan meesha loo yimi way soo dhamaatay amnigu uu adkaa ninkan uu soo gali waayay soo ku sheegaba markii yaaci dambe oo kala tagi ahaa uu soo booday ninka xakan ka soo booday aniga halkaan taagnaa markaan taagnaa culummaduna markaa maba fadhin waa meesha waaba ka istaagtay ninkan qorshihiisa wuxuu ogaaday fashil inuu ku dhamaanayo ay dhamaata arintii marka uu isceli waayay uu soo booday halkaan taagnaa yar la yiraahdo hadda aad u maleynaa in TV-yada ka aragteen oo la yiraahdo joojoole ee ana halkaan isla taagnay uu soo booday joojoole gacanta ka shafakiisoo naga joog yiri marka joojoole gadaal u tuuray ninkan yarka sargaalka intuu sheegay anigu ma aanan arkay waa iyaga isku maqnaa marka uu gacanta iga tuuray joog uu yiri ninkan uu yiri uu ka dambeeyay moogta talin ku qaraxo wadaha yiri waana ku soo booday anigu waxaan aaminsanahay ninkaani badhanka inuu taabar rabay laakiin ninkan uu gadaal uga dhigay
saan gadaalsa uma usan qaban uu ka dambeeyay moogta qabashadiis uu la waayay markaas ana labadiisa gacmoodan saa u qabta kabacdi taliyaha yimid yarkan meenada iyo u qaabilsan taliya Cabdinaasir taliya ku xigeenkiina waa aha waa qabanna halkaasaan qabanay waa wada qabanaa ninkan markaas afartanada waa qabanaa saas uga jaray arintii arin aad marka shaqadeenna guul noogu soo dhamaata tan laftirkeeda dhagar qabuhu wadana laftirkeedu guul noogu dhamaata maalin aad u farxad badan ay ahayd oo shaqadii la waday iyo xuskiina la dhigay cadawgii dadkii ayaka gacantooda ilaahay ku sababay darteeda nagama faa'iideysano ilaahay waa naga badbaadiyay hadda maalin guulahay ahayd oo cadawgii isku soo dayga sameeyana la qabtay maalin aad noogu weyn waa ay tahay maalin haddana degmadan quraceel aad ugu sii weyn waa ay ahayd ninkan ilaahay waa naga baxshay meesha lagu qabta halkaas ay ahayd ka bacdi dhagar qabaha kale asaga sheego saa lagu soo qabtay gaashaanla dhexe Cabdinaasir Manoole oo sargaalka u qaabilsan miinooyinka ciidanka ayaa markiiba isagoo isticmaalaya biisada loo adeegsado fiilooyinka korontada kala jaray aaladii isku xireeyay qaraxa taas oo ka dhigtay jaakadii mid aan qarxayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu guuleeyay waxaan sameeyay turkiiso iyo xirneed turkiisooyinkan wax lagu jaro fiilooyinka lagu jaro waxaan qabatiyay ka tartiiba waxaan qabatiyay nayuutradii fiilooyinkii xariirsanaay ee bomka telefoonka iyo isku dhiibayay wicitaankan awalum telefonkii iska jaray telefonkii markaan iska jaray haddana waxaan jaray mar labaad oo one by one oo labadooda haddii la isku taabto qarxaasi hore ka qarxaya ilaa Britain waxay meynaysi balaaski isku gudbinaysaa qarxaasi one by one markaan u gooyay telefoonkiina aan jaray waxaan ku wareeyay iska dhaafaa hadduu hadda isqarxi kara jasta isqarxiye ilaa qarxi dhamaaba waa jireen jaakadii xaadi uga siibna annagoo cabiidinayna wali sidaas ay ahayd dhacdadii meesha ka dhacday ilaahay subxaanahu wa ta'aala hana nagu guuleeyay iyo ciidamada oo aad u fiirjignaayo intaasi la fiirinayo qofkan dhaqdhaqaaqiisa la socday waqtigiina aniga taliyihii iga sareeyay taliya Cabdullaahi Cabdi Raage iyo anigiiba ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu kalifay inaan isugu tagno ninkii bamka siday ayadoo ay noo muuqatay bulshada iyo boobalaha meesha jooga iyo inta ummad Soomaaliyeed ku baaba'aysa meeshaas ima ku waxyeeloobay waxaan ka door bidnay inaan nafta aan leenahay annako aan midaamin ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu guuleeyay maxamuud oo isaga laftigiisu socday inuu maanta xasuuqo waxa uu ku doodayaa in qaraxii 14 Oktoobar ee Soobe uu saameyn ku yeesho uu ku waayay saaxiibkiis warax uu ku dhacay markaas Oktoobar Soomaaliya xilligaas uu dhacay wuxuu gabar eedada abtigay uu qaba ku dhaawacantay wiil kale oo aan isku dugsi aan ahaan jirnay madrasada isla dhigan jirnay inuu ku tagay ii sheeg yar meesha jooga loo soo sheegay ii sheeg Cabdinaasir ay dhahaan yarkan Arab la dhahaa leeyahay dhahay qarax magaciisa ahaan Arab nin Arab la dhahayo TM kaas gaarigaas inuu wada u maleynaa leeyahay dhahay bas yar oo shabaab asaasi uu dhahay